wasiirka caafimaadka Jubbaland mudane Maxamed Ibraahim Oogle ayaa magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ku soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Puntland mudane Jaamac Faarax Xasan iyo xubno kale oo socdaalkiisa ku wehelinayay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Puntland mudane Jaamac Faarax Xasan iyo wafdigiisa ayaa Jubbaland ku sugnaan doona muddo 3 cisho ah waxaana ujeedka halkan ay u yimaadeen uu yahay sidii ay u sii xoojin lahaayeen wada shaqaynta kala dhaxaysa labada wasaaradood ee Puntland iyo Jubbaland wasiirka caafimaadka Jubbaland mudane Maxamed Ibraahim Oogle oo ugu horreyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muhiimad gaar ay u leedahay soo dhaweynta iyo qaabilaadda wafdiga wasiirka caafimaadka Puntland maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo walaalkay saaxiibkay wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho gaaban oo 3 maalmood ah noogu yimid muhiimadda booqashadana ay tahay inaan isxog wareysano wax kala faa'iidno wasaaradda caafimaadka ee Puntland iyo wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland sidii la ogsoon yahay waxa ka wada dhaxeeyo wada shaqayn maamul ahaan iyo deegaan ahaan iyo dad ahaanba marka inaan kala faa'iideysano waxyaabaha badan ee wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay nooga horumarsan tahay inaan ka faa'iideysano waxyaabaha annagana aan kaga fiicannahay inay ka faa'iideystaan 3 maalmood aan isla tagno isbitaalaadka xafiisyada xarumaha shaqo ee wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland si walaalkeen uu nooga faa'iideeyo waxyaabaha ay wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay nooga fiican tahay waxaan rajaynayaa walaalkay Dr. Jaamac 3 maalin uu joogo inay u ahaato 3 maalin oo barasho ah doctor ku soo dhawow deegaankaadii dhulkaadii maamulkaadii wasaaraddaadii ku soo dhawow adiga iyo wafdiga hogaaminayso waxaana ilaahay ka rajaynaa insha Allah tacaala adoo faraxsan Jubbaland iyo Puntland markii la yiraahdo Puntland waa hooyadii asaaska federaalka waxaan u maleynayaa in ugu dambeyn wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Puntland mudane Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay in halkan ay u yimaadeen in ay u kuurgalaan sida ay u shaqeyso wasaaradda caafimaadka Jubbaland si ay wax badan isu dhaafsadaan labada wasaaradood ee Jubbaland iyo Puntland. Rahmaan Rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasiirka caafimaadka Jubbaland wasiir Oogle wasiirada kale iyo xildhibaanada halkan maanta igu soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii waa maalin runtii muhiim ah farxadna ii leh inaan maanta soo gaaro magaalada Kismaayo oo caasimadda ku meel gaarka ah ee dawladda Jubbaland sida walaalkay wasiir Oogle sheegay booqasho gaaban baan halka ku nimi aniga iyo wafdi ka socda wasaaradda caafimaadka ee Puntland oo aan hogaaminayay ujeedadana sida wasiirku sharaxay waxa weeye inaanu aqoon isweydaarsi iyo khibrad isweydaarsi aanu isdhaafsano hadii la haydmo wasaarad walba iyo cid walba waxba laga baran karaa cid walba wax cusub oo ay ka kala ku biirin kartaa jirta marka waxa muhiim ah waxyaalahaas oo dhan inaanu isdhaafsano waxa ila socda agaasimihii policy and planning ama qorsheynta iyo siyaasadaha ee wasaaradda Puntland waan ugu talagalay wixii capacity building aan ku kordhin karno wasaaradda caafimaadka Jubbaland ku kordhino iyagana wixii aanu ku aragnay ee aanu isleenahay waa idin anfacaysa aanu ka qaadano hadii la haydmo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta soo gama aha markii ugu horeysay yaanu wasiir Oogle isu nimaadno marar badan Puntland aanu isugu nimi oo inoogu yimi halkan horaanu imi intii isaga ka horeysay intaanu wasiirkii ka horeeyay uu joogay wada shaqayntan iyo xiriirkan uu soo socday haddana uu sii socon doona hadii la haydmo waxaanu qaadan doonaa dhowr maalmood baan wada qaadan doonaa oo aanu soo booqan doono xarumaha caafimaadka aanu iswada dhaafsan doono hadii la haydmo khibrad iyo waayo aragnimo aad iyo aad baa runtii u mahadsantiin kulligiinba Sabriya Soomaali warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo.